kulan dhaqaale loogu aroorinayo dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ku habsadeen ayaa lagu qabtay magaalada Toronto ee dalka Canada. kulankan waxaa soo abaabushay hay'adda Alpha Trust ee fadhigoodu yahay magaalada London ee dalka Ingiriiska. waana markii ugu horeysay kulan noocan oo kale ay ku qabtaan waqooyiga Mareykanka. munaasabadan waxaa lagu qabtay Easter Restaurant ee ku taalla galbeedka magaalada Toronto. waxaa ka hadlay dad aad u fara badan oo ay ka mid yihiin wariyaal iyo fanaaniin iyo maamulka telefishinka caalamiga Universal qaybihiisa kala duwan London iyo waqooyiga Amerika iyo madaxa hay'adda Alpha Trust Daahir Cali Kulmiye. hadda waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeye ninkii oo maskaxdii ka dambeysay Universal TV in North America la keeno oo ah طيب شيخ kusoo dhawo. waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo Alpha Trust. Alpha Trust waxa waaye hay'ad u kacday inay caawinto ummadda masaakiinta ah ee dhibku ku jiro. Daahir Cali Kulmiye waa nin dhalinyar, waa nin u istaagay Alpha Trust wax discrimination oo Soomaali qaybaheeda duwan aan shaqo ku lahayn. waan ogahay inuu tagay North, waqooyi, Hargeysa, Boorama, Koonfur, dhinac walba uu ka shaqeeyay. Daahir waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantahay. Faaduma Cali Jaamac Nagrum oo ka mid ah tobaladii qaranka ee Waaberi ayaa sheegtay in loo baahan yahay in mar walba gacan laga geysto sidii loo caawin lahaa dadka tabaalaysan ee Soomaaliyeed. ceel qodi lahaayeen iyo hadday agoon wax siin lahaayeenba anigu horta qof baan ahay am the first hiil iyo hooba qof kasta oo Soomaaliya oo dhaqdhaqaaq u sameynaya inuu Soomaaliya wax siiyo anigu wan baan ka ahay ama tuu maxaa jira anigu Soomaali baana. maxamed axmed xaaji cagmadhige oo ah tifitiraha guud ee telefishinka caalamiga ee Universal ayaa sheegay in hay'adda Alpha Trust goob waliba ay tagaan warbixin ay ka soo diriyeen wariyaasha ku sugan gudaha dalka Soomaaliya kuwaas oo matalaba uu yiri telefishinka caalamiga ee Universal. hadii ah inaan ka qayb galo caawa munaasabadan qiimaha badan ee ku saabsan hay'adda Alpha Trust oo aan idinku cusbayn oo ah hay'ad dhinaca gargaarka ka qayb qaadanaysay sanooyinkii ugu dambeeyay xilliyadii abaaraha iyo ka horba taasoo tagtay meelo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya oo ka qoday ama ceelal ama dad xoolihii ay ka baabeen xoolo u iibisay ama dad jiran daawooyin u geysay ama dad aan waxay cunaan haysan cunto u geysay. marka London ayaa xarunteedu ku taala. Daahir Cali Kulmiyana waa gudoomiyaha, rag la shaqeeya iyo dumar la shaqeeyana way jiraan. in la ogaado ilaahay ka sokow in hay'adda Alpha Trust ay jirto waxaa kaalin fiican ka qaatay telefishinka caalamiga Universal oo magaalo kasta oo Soomaaliya gudaheeda ama dibaddeeda wariyaasha u jooga ay soo gudbinayeen fariimaha ku saabsan waxqabadkeeda oo iminka toddobaadkan markaynu halkan soo aadaynay hawshii ugu dambeysay ee ka samaysay qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya gaar ahaan dadka iyagu dhibaataysan. waxaa dadkii meesha isugu yimid u mahad celiyay Maxamed Aadan Cilmi oo ah maamulaha maqaayadda Easter Restaurant. sharaftan nasiib waxa uu yeeshay caawo gidigiin inaad u casuumo si walaalkay Daahir aan ku soo casuumayn caawo xalfadan. marka Daahir aniga sanadka hore asbaranay maan u moodeenin hawsha oo hayeen hawl yar tahay laakiin nasiib waxa uu yeeshay marka tagay Ingiriiska in aan la kulmo asiga iyo gudigiisa. marka nidaamka wada shaqeeyay kala dambeynta ayaa ay dhiirigelisay in aan ku soo dhaweeyo magaalada Toronto. aadna waxa ugu faraxsanahay in ay idinka soo qayb qaadateen. marka kulligiin waxa la mahadsanidin ma sha Allah soo dhawaada. thank you. gabagabadii waxaa hadalkii soo gunaanaday madaxa hay'adda Alpha Trust Daahir Cali Kulmiye waxaana hadaladiisa ka mid ahaa reer Toronto inaad hooyo Soomaaliyeed u heliseen mar inaan u celiyo jaaliyadda Toronto meel walba ay joogaan in aan diib aad iyo aad ugu mahad celiyo maadaama ay noqotay habeenkii ugu horeeyay oo North America annaga Alpha Trust ahaan aan ku sameeyno xaflad dhaqaale aruurin ah agoonta iyo maatada. waa markii ugu horeysay aan waxay noqotay midii ugu quruxda badnayd. reer Toronto waa idin mahad celinayna. waxaan rabaa halkan inaan ugu mahad celiyo Somali Week Today oo aan ka mid ahay ama aan ahay dadkii wafdigii sportiga u imaan jiray ee tahay sanadkii sanaad inaan ka soo qayb galo ciyaarahooda. waagayga waxaan u imaan jiray sports sanadkii ka horreeyna waxaan u imid director Alpha Trust anigoo ah Maxamed Carab oo Cali
telefishinka Universal magaalada Toronto ee dalka Canada.